بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحلا لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أدكم ردوني سوق قادايو إناد فريستان oo aad si fiican u dhagaysataan baa fiican laana masaajidka aadaabtiisa inaan ilaalinaa fiican diintana aadaabtaa laga horeysa wax walba aadaab baa ka horeysa dhalinyar baa tihiin maasha allah qulu maasha allah dhahada maasha allah dhahada alxamdulilah dhahada alxamdulilah waktigee nolosha ugu fiicnayd baad ku jirtaan waana waktiga baa la yidhi dhallinyaradu ay waalan yihiin ma miyir qabaan intooda badan marka da-daas ninka dhallinyarnimadiisaas ilaahay ku gartee ilaahay ku caabuda ee daacadda ilaahay ku barbaara waxa uu ka mid noqonayaa toddobada ilaahay jalla wacalaa uu u hadhayn doono maalinka hadhka alla mooyaane hadh kale uusan jirin sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluhu imaamun caadilun wa shaabun nasha'a fii cibaadati اllah ilaa aakhir alxadiid yowma alqiyaama ilaahay caza wajalla hadhkiisa mooyaane hadh kale ma jiraayo toddobada hadhka ilaahay hoos joogsanaysa ee halkaa banka qiyaame kaga badbaadi doonta dhibaatada qiyaamada jirta waxa uu nebigu ku sheegay inuu ka mid yahay nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisii ku barbaara ilaahay daacaddiisa yowma alqiyaama maalinka dadku ay saro joogi doonaan maahin maalin keliya maahin laba maalmood maahin laba bilood maahin laba sannadood waa 50 kun oo sannadood weeyaan waa maalinka nebigeennu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka cadcaadda ayaa madaxooga la kor keeni doonaa cadcaadda ayaa dushooda la keeni doonaa qof walba dhididka jidhkiisa ka baxay ayaa dhulka intuu galo 70 xusul dhudhun intuu dhididku dhulka uu galo ayaa haddana qof walba dhididkiisu ku soo noqoni doonaa daada qof walba halkii dembigiisu intuu dembigiisu ahaabaa laga dhigi doonaa dhididkiisa qaar baa nebigu yihi sal alla alay wasalam kuraamaha ayaa dhididkoogu iman doonaa qaarna jilbaha ayuu joogsan doonaa qaarna halkaa guntiqabadka dhexirka la idhaah buu dhididkoogu iman doonaa qaarna garbaha ayuu iman doonaa qaarna wuxuu nebigu sheegay halkaa qowlalada ayaa dhididkoogu iman doonaa waa qof walba bad isaga u khaasoo cid kale aysan la qabin waa maalinkaasaa ilaahay leeyahay uu nebi maxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam toddobada ilaahay uu hooskiisa ugu hadhayn doono waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi caza wajalla nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisii ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa ilaahay daacadiisa ku barbaaray allah inaga dhigo maxaa ninka dhallinyarada loogu khasisay maaragtana xadiiskaas oo looga mid yeela toddobada ilaahay u hadhaynayo laanna xilliga dhallinyarada la yahay waa xilliga la waalan yahay weeyaan waa xilliga ninka dhallinyaradu dhimashana uunan ka biqin xanuunna uunan ka biqin
gaajana uunan ka biqin mustaqbal hor yaalana uusan jirin ee nolosha dhan ee adduunyada uu haysto in dadku sidiisa ay wada yihiin dhallinyarnimaduna waa qayb ka mid a waalida weeyaan marka ninka da'daas ilaahay ku caabuda ee masaajida ku camira ee diintiisa ku barta ee cibaadada iyo khayrka ku dadaala fadligiisu caadi maaha waxa uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyay qisas fara badan oo dhallinyarada ku saabsan qur-aankuna waa ka warramay oo qur-aanku wuxuu ka warramay asxaabul kahf innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda ilaahay baa sheegay dhallinyaray haayeen baa ilaahay yidhi dhallinyaro aamanuu birabbihim rabbigood bay rumeeyeen wazidnaahum hudan baa ilaahay yidhi annakuna hanuun baan u beerinay baa ilaahay yidhi hanuun baan u ziyaadinay waddan waxay ku noolaayeen ninka boqorka ee waddankaa xakuma uu dadka ugu yeedho inay dadku isaga caabudaan oo la odhan jiray magaciisa tuqyaanuus marka iyaku ilaahay bay garteen dhallinyaradaas id qaamuu faqaaluu rabbunaa rabbu الsamaawaati wاlأrض lan nadcuwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa idan shaططa هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا dadkii kale oo dhan ee waddanka ay kula noolaayeen oo dhan ninkan gaalka ee boqorka ay caabudayaan ilaahu haystaan oo rabbi u aaminsan yihiin laakiin dhallinyaradaasi waxay yidhaahdeen maykanu waa bashar markaasaa boqorkii baa loo sheegoo lagu yidhi waddanka waxaa kugula nool dhallinyar maaragtaane rabbinimadaada inkiraysa markaa buu ciidan u soo diray marka dhallinyaradii laba ayaa loo bandhigay laba mid baa loo bandhigay in maaragtaane diinta islaamka ay la yimaadeen ay ka soo noqdaan oo gaalnimadii ay dib ugu soo noqdaan imaa in intoo iyaga siday u dhan yihiin intoo la qabtoo la xidhxidho dhagax tuur lagu dilo dhagax tuur إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إياك بكشيك يويري هدينا قبطان وعيدا كأبقر النصدر أين هلالان وأي قعنت نقول لقان لما مد بين نقول سمين كران إما إني ملدو دا قال لماذا ديب نقول عليان إما ما ركتان إني نقحي نقول دلان مركا وحي فضلان inay dalka dhanba ay uga baxaan si diintoodii iyo iimaankooda islaamnimadooda ay u xafidaan inay aabbayaashooda iyo hooyooyinkooda iyo ahaladooda iyo dalkooga ay joogaan waxay ka doorbideen inay islaamnimada ilaahay uu ku galladaystay inay ilaashadaan waa meesha ay culimmadu leeyihiin diintaada islaamka meesha dhaawacaysa waa inaad ka tegtaa saaxiib xun oo iimaankaaga iyo diintaada dhaawacaya waa inaad saaxiibtinimadiisa waa inaad goysaa almar'u calaa diini khaliilihi falyandur ilaa man yukhaalil baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofku saaxiibka diinta uu qaba ayaa diin adigana kuu noqonaysee ee nin walow ninkaad la saaxiibaysa iska eeg buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa mujtamaca daadna dhallinyarada waxay door bideen weliba waxaa la sheegaa oo kutubta ku qoran ciyaal saboola ma ahayn oo dadkoogu fuqaraa ma ahayn bal waxay ka soo jeedeen reero wada aqniyaa iyo xoolole ayay ka soo jeedeen oo maalqabeennaa ma la fahmay allah ina fahamsiiyo daadna waxay door bideen markaa waddanka dhanba inay iskaga tegaan markaasay weliba waxay baxeen baa la yidhi xilligan oo kale ay magaalada ka baxeen xilliyadan oo kale mid ka maqnaa markay tashanayeen oo xoolihiisa markaa soo daajinaya oo aygiisiina uu maaragtaane uu la socdo kii bay u yimaadeen waa u sheegeen waxay idhahdeen annaku waddanka waan ka tegaynaa waa ka soconnaa
ومحاد وقصعتان وحيد هذا دين إيمانك يجا أيا قاليا إيمانك قاليا آمناد إلهي أنا من نبا وحول بنوقا قال سنو ودن كردن وان هرينا لكن إيمانك يجا إسلام نماذج هذا علا ديك من نبي كوير هذا ذلك هو دين توا متكيد دورتين يا دين تي دورتين ذلك هو باب أيد هذا هكذا ذلك يجا dadka iyaga han weyno laakiin islaamnimada ilaahay nagu galladaysteeyeen in seegan bay dhaadeen dadna markaasay kiina uu raacay markaa aygii markaa isaga la socday ariga la ilaalinayay ayaa damcay markaa inuu raaco markaasay ku yiraahdeen aygaagan uu na sheegay naga reeb markaasay yiraahdeen waa yahay reeba dhagax bay markaa harraa kala joogsadeen baa leeyahay luqadii markaa ay ku hadlayeen buu aygu kula hadlo wuxuu yiri ilaaha aad caabudaan aad rumayseen baan aniguna u qaana inuu yahay rabbus samaawaati wal ardi maxaa seekeen reebaysan iska ka dhaafaan raaci buu ku yiri ay galabta af Soomaaliya kula hadla ka warrama sidee noqon lahayd magaalada Gaarisa waa iska daayeen markaa aygi markuu la hadlay waa iska dhaafeen habeen oo dhan bay guurayeen waa la raadinaya raadkooga lagu taagan yahay waagi markuu rabo inuu soo dalaco waagu bari waa barigi markuu dhawaaday ayay arkeen markaa kahf arkeen kahfku wax weyn waa godka buurta dhexdeeda ka soo jeeda weeyaan markaa bay dhaadeen halkan hangallo maanta oo dhan halkaan oolo caawa cadaadu fiidka galabta markay cadaadu ay dhacdo oo dhulku madoobaadana han sii socono إلا مالين هدي لنا أدان سعنوا ولا نسوا أركيه مركز يساعدن لا حلي أردن وحي كجرا صعد بكجرا سفر ويدالين ويساعدن مركي عصر قابل مركي سوا كعين أي استيرادين مركز صدق كم سعون كرنو سفر كلام قال كرناه وان قاجونا إنا وان هرات سنة هاي عنتانو باهنا هاي الراشنة بلني ولو جابت هذا وحي العاكو جرتين تود صو صارتو ninka inoogu maaragtaanay inoogu socod fiican inoogu degdeg badan intood noogu dhiibtaan magaaladii ha ku noqdo magaaladii waa tan oo nagama fogaahay noogu noqdo dadna raashina ha inoo soo gado haddii laakiin la garto oo la qabta isaga yuuna na soo sheegina isaga kaliya dhibaatada ha ku ekaato ku salliya nabigeena sallallahu alayhi wasallam dadna markaasay waxay bilaabeen markaa kiiba magaaladii galay raashinkii buu soo iibiyay markuu lacagtii dhiibis yidhi ayaa lacagtii la fiiriyo sida loo eegay ninkii maqaayada ama dukaanka lahaa baa ku yidhi lacagta hakeed ka keento wuxuu yidhi jeebadeedaan ku sito anaa soo saaray lacagta cidna kama soo dhicin markaa buu adiguna xaggeed ka timido aniguna meel aan dheerayn oo dhow baan ka imiday buu yidhi lacagtaada iga qaado alaabtan ay sii markaasuu ku celiyay lacagtan halkeed ka keentay lacagta aniga wato jeebadeedan ka soo saaray oo adiguna halkeed ka timiday inteed ka timiday meel heblaayaan ka imid doomaba dheeri meeshaan ka imid meel dhow baan ka imid lacagta iga qaado baaqiga ii soo celi dadkii baa ku soo ururay markaa lacagtii baa loo ninkan lacagtu wata fiiriya buu yidhi lacagtii buu la eegay markaas yarkeera u naxay markaa harraha laga joogsaday ayaa lagu yidhi ha cabsan ha murgin anagu dad muslimiin aan nahay leedo dadka ma dhibno waxaan la yaabanahay lacagtan aad wadateen leedahay waxay kaga gada waxa laga jooga xilliga wadankan ay ka shaqeynaysay 309 sano ayaa laga joogaa baa lagu yiri meeqa sano 309 sanadood waa 3 qarni محاتهين مسلمين ويا مسلمين يا آمن سنتين الله بقر كمية بقر كواما نقول ده بيسانك ما بقرنا إنما ما سوق قارنا وان مقلم ويا هذا هالكات كتيم ده أنا كودن لير بنا هين بيودي بقر كابان كبح سناي هبين دم بنقوريني واجي مركو بريو عياد وعصابة حدنا جود بان قال له جود كيف بدنا لير تيجي سوقين هذا وحنو بلنسنا عاونا سفر كلا إنا بلونو سيب حصلنا
وعلى الوادور لادهين صدح قرني بأدونك السعودي والله سوق هذا كيرا بقر كي وضنك حكومة يا مسلم كالله كان وحال بقر كاسي بقر داعية بوها وضدك إلهي حقي سوقيه ده مركز ضد واحد جري وضل كيس الجوجو أو دمشق إن بعث الله صوبح دونه إن انتولد انتو خلقك الله صو ساري دونه إن كرسم بجري مركز دليل بو مركز هو هلا مركز صريحة أو مركز مضونتا بقر كي يا واحد صور يا عيدن كي يا مدحدي يا يركي وعلى دليل النوجي markaa buu haddii aan hadda inkoo ila socdo aan ka kor dego way iga naxayaan oo in la soo qabtoon iyakana aan soo sheegay bay moodayaane aniga horta u tagayay inkoo ii kaadiyo buudi waana ka dhaadhicinaya mowduuc cusub uu yahay ardul waaqi aanu sheegaya in caalamku socday oo noloshoodii iyakana ilaahay joojiyay nolosha yahay Allah baadna may cunin biyana may cabin tintoodii ismay bedelin dharkoogii isma bedelin awoodoodii ismay bedelin maalinkii siday ku jiifsadeen bay yihiin yaa ilaaliye markaa yaa ilaaliye yaa arsaaqaayey yaa baahidooda daboolayey ayaa nolosha ku deeqay biyo iyo baad waa labadaasi waa asbaabta lagu noolaada odhan karnaa qur-aankan ilaahay ku sheegay laakiin asbaabtaasi waa asbaab ولكن إلهي قفك بن آذنك إنه النولا بلا بادية بلا بيو وكرا ما الدليل على ذلك لغير أصحاب الكهف أو دليلها صدح قرني بيجوجين عالمك يكو بينا أنا عبن بعدنا أنا عنن وأنا سدود اسمي بدلين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قرآن كإلهي كل شيء godka waxay ku dhex nagaadeen baa ilaahay yiri 300 iyo 9 sanadood bay ku nagaadeen baa ilaahay yiri waana sidood isbay bedelinayo innaka imaka alxamdulillah iskool baad diganaysaan wax barashaad u timaadeen halkan waxa laga yaabaa waalidadiina qaarkood markay waaninayaan inay ku yiraahdaan aabo mid baa inamadiisa ku yiri aabo imtixaankii baa la marayaa soo maahan ha de bariiskiina u shaqaystay wuu bariiskan aad cuntaan waa kaygii ku yaro marka dacwada baxay oo iimaaniyaadkii oo aad aqeedada si fiican looga dhaadhiciyay buu dhalayo marka aabaha iga xanaaqine adiga iyo aniga iyo hooyo iyo kan iyo tan intuba he bariiskii ilaahay baan cunaa buu aab marka adiga tabliiqa ku walay buu وصل يا رسولك بالصداس أصحاب الكهف وحبر شذا مدي ذينه وحنو برت وانو باننا وحنو برتان وقفك مسلم قويه إنه نقضه وانو باهنا هاي لكن هدات رادد مادة أن دجنا يد تعليم أن دجنا يوم من وحكوني كره هدات رادد عقيدة دخل بكوجريس كصح أرزاقنا وجوني تعليمتنا وجوني اسكو ما حدنا قوة إلهي كسيين وجوني أرزاقنا لقو قدره لقو قرينا وجوني خبرة دات قانينا وجوني أرزاقنا إلهي كو قدرنا مال بيت الله وجوني شقي اسكو ماله سيدة وحبرو وجوني والتعليم جونية والله بهاي لقمنا مارمي كرو لكن إن اعتراضه تعليم تابع أرزاقنا ده كل حرن تهي تاسع لقد دقيقة ولا قد دقيقة إلهي وصلوا دون يلويان فريست أدر فريست إن شاء الله وهذا مقلة إنسان سومين إن الفريستان بيني في عن سرجوجة فريقة كفيعة ما شاء الله الله ينبركه خير بين نجم وقضى يجعل أي نجم وقضى جعل الدين يركي يرى مركا بقر كي يعيدك الله سعود وجوجي إسقى مركا دلنا يردي بو صوغ قالوا كذا داعي نقولك دقائق وعالم السعودي نلا شودنا يكل جوجي كذا داعي بو سيري مركا اللي مركو ويمدي با وحو ويمدي يكون نفسه كوضع داعي إلا أنتم مغنى أيها هذا هردة كسير نقطة لأنه كذا على نفسه يكيبا إسقى مركو صوغ قالوا دولي مدي واركيني وضع دنتنا إسقى إلى الروح دي بوكا قبتي بقر كي خلقي الله سعود مركي راكسدين
ayakii baa markaa ka daba yimid oo waxay u soo galeen dhalinyartii oo wada mayda waa ka odhanaya boqorku lanattakhidanna calayhim masjida marka u soo galeen hay-addoodii ismay bedelin dharkoogii isma bedelin quwaddoodii ismay bedelin waa sidoodii caalamka 3 qarni buu socdo dhaqaaqa imisa ummadda la 3 qarni imisa laakiin iyagu waa sidoodii ayguna waa sidiisii markaasaa ilaahay yidhi wanuqallibuhum وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بإلهي سقوا إلهي نبي سأو الرمى عليه الصلاة والسلام بلغو يدي عدعادو حقا مركا كتما دانا حقا هركي أو مرينيني هرك حتى جركو عدادي متهبنين بالليل لكن دي الرمات كهيليين بالليل بني آدم جركيسو مقدنا وأوباهن يهي دي الرماد عدادنا جركاق وأوباهن يهي جركاق بينا وأوباهن يهي بعدنا وأوباهن يهي معانا وأوباهن يهي دنانا وأوباهن يهي إلا صعودنا وأوباهن يهي إلا نصيانا وأوباهن يهي وعلى العداد مركا حقا كتما دانا حقنا هركا إلهي أوكينا وعلى ولبا مركا سائلا ونقلبهم وانقلبين با إلهي مركو دنا عن ودالبا حاجة كلام الرجينا حاجة مركو دالنا حاجة كلام الرجينا لكن أيجا إلا الرجي اللي مش يجيني سجع وكلبهم باسط ذراعيه أيجو زاس وهردا سوس هذا أيجو أفرت الدين بدل كلتا بقنا بدل كقبتا أوصح ذا ماذا حنا دنا بدك ساودجا بني آدم كوال الرجي يجركوجا لكن أيجا لما الرجينا أيجا محل الرجي ويبا ليدي قرآن قوحه وشاقيا وعلم عجيبة قرآن قوحه عديو شاقي أيقو بقي سبالة لجركة بن آذك وكعذك يحي لذلك أيقو صدح بغل أو الصنو بقي ساعة صدولكو كوها يي اسمنا بدلين أما بن آذك يساقا ولا الرقى يمر والبا نندختر أو جرمنا أي التكنولوجيا دا عصرقا أي قالوا أي وحوالبا أي باربارين وحكوه قادي آيات دا قرآن كالله كانوا اللي آيات دا أخرسو وبارد جرك بني آدم أي بوجي سفرك قاعد حيا وحو أجاد علمك أيا كيني بود علمك إيش شجع آيات القرآن كعلمك أيا شجعي أنا أقول علمك هذا هاللي بكلية وآلات كان أكو هاللي أكو اكتشافنا بني آدم كجركيسو ساعة وحكبة إنه دنا عوجي فكرين أما أيجو إنه بغلال صنع حاجة عوجي فكره آلات كان أكو هاللي علمك إنك أيا إيش شجعي وعلى العلمك وحكوس صدقي نبي الأمي الهاشمي القريشي نبي أمي معنيه سوا معي وكايسقوا أنا قاعد يسوى حنا كقرينين وحلا قرنا أنا آخرين كرينين نبي عليه الصلاة والسلام كصليا نبي قاس قرآن ككسر دقيبة كور رميا إنه أيجو صدح قرن وبقي سكوجيفه مرقاس النبي قال له قولي حداد كوب حيل أيكو قد كجيف أدو تقيل حيد مرقوه الرسالة قال له قولي هي قلبك عبسي بقى لقى بوحين لها مركز أركتنا واد بحسن لها يدبا النبي قال له يدي آيات مفسرين توحي شيئا ولا أركايا اللي يراد أين قلتك كجران لأنه وصدح قرني ويان ولا أركايا لكن قف لي قفكي أركبان لا يدي مركو أركبه وبحسنها يي مركو سيجي سنة عبسي بقى كل عيسى قلبك يسا لأنه مسكع ديسا الذاكرة ديسا وحاين وأركبه ولا قا مسحاي إنه أركبه ولا مسحاي يا كما صحاي يا كما صحاي الله إلهي لأن إلهي عز وجل قدرة ديسو هي سنة ديسو نظام جاري وصعته ويا قدرتنا سنة كسر رسالة ولا أركاي قف اللي يقف أركبان وبحسناي مركو سيجي استنبال لي قلبي سوحة لقول ذاي عبسي بقى لقول ذاي قف قاس عبسي بقى لقول ذاي مركبة بس الدودي القرآن كان لقول شيء القرآن كنا ومنزل إلهي حقي سوك الصدقي وكلامك إلهي عز وجل ذات هذا إلهي بقرآنك كصوبحي جبريل بالله صودي عليه السلام جبريل قلبك نبينا عليه الصلاة والسلام بقرآنك كو أخري كو رجيي مرقا قصة القرآن كان لقول شيء سو قصة علوس ما حل لقول شيء ما تقانا لأن حل جدًا يرنمدا ونك جدًا يرادو ولو عليه هي ولا هي وقت كان الصعداء
ayay iyaku intay ka soo hadheen zamanka wixii jiray gaalnimadii iyo kufrigii iyo fasaadkii iyo fisqigii jiray intay ka soo hadheen ayay ilaahay cibaadadiisa iyo taacadiisa u banbaxeen markaasaa lagu sheegay suuratul kahf waana suuradda mustaxab ay tahay maalinta jumcadii in la akhristo waa suuradda nabigeennu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam awaa'ilkeega wa fii riwaayatina awaakhirkeega uu nebigu yidhi qofka akhrista tobanka hore ama tobanka dambe fitnada dajaal buu ka badbaadayaa buu nebigu ilaahay ka ilaalinayaa waxaa kaloo qur-aanka lagu sheegay qisatu yuusuf ma oday duq ahaad moodaysaan dhallinyar u ahaa naxnu naqusu calayka axsana alqasas bima awxaynaa ilayk wain kunta min qablihi la min alghaafiliin yuusuf qur'aanka waa qisada ugu macaan qisatu yuusuf hal cunwaan maa ka soo qaadan yuusuf calayhi salaam walaalihii way xasdeen ceel bay ku rideen niman safara ceelka intay soo mareen bay biyo ka dhaasada istiraadeenoo yuusuf baa kaga soo baxay way qaadeenoo casiiza masar boqorkii masar bay ka iibiyeen fatarabbaa wa taracraca fii qasri malik waxa uu ku barbaaray nebi yuusuf boqor qasrigiisuu ku dhex barbaaray quruxda aadam awlaaddiisa ilaahay uu u qadarayna kala badh baa nebi yuusuf la siiyey kala badhkii kalena bani aadamka adduunyada ku nool oo dhan baa loo qeybiyey baa la yidhi intuu nebiga qurux leeyahay marka kala badhkii kale ayaa bani aadamka kale loo qeybiyey mid sankay kaga dhacday mid indhahay kaga dhacday mid foormigay kaga dhacday soo maaha inte soo sidaa maaha mid hadalkay kaga dhacday qaar ba hadal qurux badan leh hadal macaan dhagahay kaga dhacday ninba meel buu ka qurux badan yahay walaakiin yuusuf calayhi salaam maxaad u malaynaysaa shatru ljamaal aadam awlaaddiisa quruxdii ilaahay uu u qadaray baa la yidhi kala badh intoo la soo qaaday baa nebi yuusuf la duldhigay keligii markaasuu weliba ku barbaaray boqor gurigiisa ninka dhallinyarada ee la yidhi quruxdii bani aadamka loogu talagalay kala badh baa keligii lagu deeqoo la siiyey naagta ninkaa la kulantay aragta maxays odhanaysaa war maxays odhanaysaa kan ka sunnee bays odhanaysaa inuu ku dhaafin ya salaam boqorkii haweenaydiisii boqoradii marwadii boqorka ayaa mar alle markay yuusuf way diranaysaa ila waa qulaamkayga waa addoonkeedii ayaa kaa gatoo iibsaday socodkiisay la yaabtaa suuraddiisay la yaabtaa gacmihiisay la yaabtaa foormigiisay la yaabtaa sijeedkiisay la yaabtaa soo jeedkiisay la yaabtaa waxay tihi wallahi kan inuu ku dhaafin ya salaam ya salaam laakiin waxay ka warqabin shakhsigani shakhsi caadiya ma aha waa shakhsi ilaahay ilaalshanaya weeyaan xilli boqorku uu ku maqan yahay socdaal ayay albaabadii oo dhan soo xidhatay boqoradda daa'iman gabdha ag jooga u khidmeeya ragna aqalka ilaaliya dhinac walba ciidan baa ka taagan raggii ciidankiina waxay tihi dibadda bannaanka ka ilaaliya guriga gabdhihii u shaqaynaya khadamkaygina waxay ku tihi waad fasaxantihiin 7 albaab baa culimmadu qaar yidhahdaan 7 albaab oo isku xigtay soo qufulatay markaasay dhar foolxuna u soo xidhatay yuusuf say u dirdiranaysay ku tihi yuusuf hayta laka bay ku tihi hada aqalka aniga adigoo baa ku hadhnay ugu maanta dee kolkaana dee waa shaqaysanaynaa laa ilaaha ila allah bal ka warrama arrintaasi haddayna kan heli lahayd mid baa la sheegayo maqaaxay buu fadhiyo in sheekha ag fadhiya marka gabadh baa dariiqa maraysa marka dhar fool xusidata markaa buu sii eegay markaa sheekhii baa ku yidhi war in waqul lilmu'miniina yaqudduu min absaarihim ku camal fal buu yidhi aayaddaa ku camal fal markaa buu yidhi sheekh wazayannaaha linnaadiriina miyaad maqan buu ya salaam markaa sheekhii baa ku yidhi war aayaddaa maaha meesheedii maa digin buu ka yidhi aayaddaas wazayannaaha linnaadiriina waa halkee
والنجوم في السماء واحد دقاها واحد الوجود وحفظناها من كل شيطان رجيم باكو حكتة مركز يا أخي اتق الله هيجن كجسو فما بالك محاذو ملاين بقر حوين يدي سيء قبيي إيدا دوش يدا إمسان نعمة دولتها لكورن وإسلام بقره نين دلن يرى شاب وأقل يكون حيلتنا كورما مرقابة كل هذا هيت لك يوسف هذيك يعني قوم بأقل كوها نعيدك لكم هريني إيكالا بيكتري قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي سمعي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه ربي وبقرك وحا وجدا بقرك أيو يري وربك وكي معناها إبرباري أنيقا إدل كان نسحدنا إي قديي إنه للشيء دم ماركتانا إنتو يبسدي كفالة قاضي ويان إن أنحاس كيسا أن ماركتانا حمان أن أولتقا إلهي بان كم مغان قلي بود إلهي بان كم مغان قلي سدانا ما السمايو إلا قف ظالما مويانا ظالمنا ما أفلح بودي وصلي رسولك ظالم كنا هي ما أفلح يبوكي بس جزاك الله خير ده مركز يكون أقل كقفل الذي سوى كوا وحنا كادل بدي هدانا دي سمينا جرس قوات غانا ما نوم لنا جرسجا سماه جرس أيا كل فنايا كم بلال باتل هذا كور أما كم بلال إسكندر ده نعيدا كوينتي سوقلان أيان أورنا يعني كاسي إنه يقصبوا الربي هلا يقبطوا هلا يحلو هل كله بقول ردنا ديب دم الله جو أرك مايو أسباب تيوردن ويكسو حرنتي وبقرده هوين يديسي أقل الباب تيوردن ويسوق فلته وحرته وانن اللي يرى دار فولحنا ووسو حرته مركبه وأركيا ووجد وأركيا ولكن برهان إلهي باتمد عز وجل برهان بأنبياء الله سبحانه برهان وحال إلهي بإلالنا وعصمة إن قف كدع إلهي بأودي دون والله إلالنا يا يوسف عليه السلام ما استاجينه وعودي واد قشة واحد دون تسكت ما أورن إنك قدرت كأنه ما أنت واحد سكوا آخريان إلهي بغفور رحيم إلهي بغفور رحيم وتوبت كاني وانا شديد العقاب الباب كور ضيب الليل واستبق الباب بإلهي القرآن كإلهي كل شيء سومه وعلى الباب كأوهر يمركو قبتيبه قفل الذي يده هيستا إلهي الباب كأوجب يا مركب إلهي بأوفره حدنا ويابتي كي كلو كوردي حدنا سامركو قبتيبه بلو أوكلا جبا الباب بفل كنا ما كلا جباي حدنا كي سدحات حدنا كي أفراد وعلى كي تضبط مركو قاري إيسا سودي سادي طولي الباب كي تضبط مركو صدا أوفر النبي يوسف وحا جوغا بقركي يعيدا كيسي فلما ألفيها سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يزن أو عذاب أليم بيدي بهذا المركب ويتورته وعايزني نكرر كاجي الدم عينه كاد فرح مايو أما الجسم محيبة هاي اللي قصة مايو سو أما إن لعذابه أما سو إن جالك الله تحفظه معه وهذا قارك يوم قسمه بيكتري يوسف نوها الله مي أيدا يرين يسيب الوضوء جداد قلنا مركب يوسف لقوا يرسيدن كوكلا بحي ميسان محكمة ده لقوا تاجي محكمة ده بيتاجي ده يا جوجا أقلك إن يروا يبالي ولا شيء ده يدشوا خبر يرى أي واحد أو مركب ولي بجرجورنا يحتى هذا الكولي أنا كينين بقى وحلي أبدك هالليين أنا قارن أيا اللي ركاب أقلك جوجي يوسف بايري كان محكمة ده هلا كان يقولي كان محكمة ده هلا كان ما يرها بقرة دي مركب الله شيء وحيت قاضوا جيا بقر جوحي قاضوا جيا وحيلين معناها يوسف سنة ما أنت الدم بيجون وقبح ما يؤوب وكل حجرة لكن وحي أوجين ومن يتق الله يجعل له مخرجا باك قرصونيك قفك إلهي كبغي إلهي كعب صدع عريري كستول لا سو درسا مالو كبحانو يلا با إلهي يدي كي ربا لك أنا محكمة دي يوسف هذا الأوهل سلانتي وي حدش يا مرخاتي هستا يركنان هستا مرخاتي إلهي إذن كيسكو هذا البو يدي
ilmihii yaraa ee gurguuranaya xataa ee hadalka wali aanan keenin ayaa yidhi qamiiska yuusuf ha la baadho oo xagga hore hadduu ka dilacsan yahayna isagaa beenaalo iyadaa run sheegaysay oo uu qasbayo oo iska celinaysay qamiiskiisu xagga dambe hadduu ka dilacsan yahayna iyadaa qasbayso uu ka farxayo dadna xagga dambe ka xaganaysay waxaa la arkay halkee qamiisku intee ka dilacsan dhabarka ka dilacsan hadduu qofku ilaahay ka baqo oo ilaahay u xasuusto cidhiidhi kastoo aad geshid meel aad ka baxda ilaahay kuu samayn haddaad tidhaahdid waxaan waa xaaraan waad gashay iska laaqo oo waxaad doonta eeg oo waxaad doonta cun oo waxaad doonta samee oo tidhahda ilaahay baa qafuuru raxiima waxaad halis u tahay in markaad dhimanaysana khaatimadu koo xumaato nin saalixiinta ka mid ah salafu haadihi اlumma ayaa waxaa culammadu ka sheekeeyaan kutubtuu ku qoran yahay taariikhdiisu xajku u socday baa la yidhi ama safar buu ahaa sahaydii baa ka go'day sahaydiiba laba beerood dhexdooda isagoo hilin waddadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaaxoo dariiqa iska taalla uu qaatay uu gaajoonayey uu kabaday xabaddii tufaaxii markuu kabaduu calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yidhi xaqa naas baad cuntay ayaa kuu fasaxay nuskii kaluu iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqaynaya uu ku yidhi beertan ma adigaa le maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u malayn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiquu ku dhacay waan gaajoonaya nin socota ayaan ahaa nusna waan ka cunay nusna waa kanoo waa iska qabteen nuskaan cunay ha layga cafiyey buui nuskana ha layga qaato ninkii beerta lahaa baa yidhi anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maalqabeenkii halkaa buu degan yahay u teg isaga hadduu kaa cafinay isagay taallaa hadduu kaa cafinayna isaga u taallaa halkii buu ugu yimid markaa markuu u warramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buuri nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buuri ilaa shuruud baan kugu xidhi haddaa shuruudda aad ii buuxisid uma kaa cafin waa maxay shuruuddaasi inan baan dhalay buuhi aqalka ii dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shantaa arrimoodeen kuu sheegay leh haddaad iga guursato un baan kaa cafin haddii kalena nuskayga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orada iska soco buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeel lahayd adigu ar maxaa odhan lahayd ma sheega way adag tahay soo maaha war nuskayga aakhirahan la tega buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqanya ma ciduu saaruu rabaad odhan lahayd ma ciduu dul saaruu rabay laakiin ninkani waa nin mu'min oo aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamayaa xadiidkii nebi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarrada zamankani waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40ka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraana ninka afkiisa ay gasho caloojiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo rasuulku yidhi taabuu markaa ka fikiraya saxaab ninkan waan guursan buu yidhi ma layga cafin haa caqdigu markuu dhaco waan kaa cafinaynaa intaa ka horaysase kaa cafin maayo ninka dhallinyaradu daa'iman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan soo maaha oo cad oo dheer oo laankaayo maasha allah ninkana gabadh macduurada loo bandhigo 5 ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaasaa caqdigii lagu dhiftay markaas waxaa odaygii baa yidhi haddaba mar hadduu caqdigii dhacay waa kaa saamaxee caroosna waa tahay inantii waa ta qolkaa ku jirta way ku sugaysaaye oroda u gal buu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagii isagaa markaas la sii hadlayo wuxuu yidhi haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad ishortaagtana ku arki mayso haddaad maarataanay adu qeyladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqda gacan ma hayso haddaad kici tiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaayo waad gashee
ilaahay baana kula soo doontay aakhira naarta ka badbaadide iska salaam malaa'ikta ilaahay ba ku jawaabi doontay darka abu soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas aqalka bartamihiisa waxa loogu diyaariyay gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynayo xooral cayn samada ka soo dhacda inay tahay oo wixii la sheegay oo dhan waxba ayna ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaasuu joogsaday malaha anaa qaldanoo qol kale ayaan soo galay maya bay ku tiri zawjadaadii baan ahay ii kaale bay ku tiri markaasuu ku yidhi aabbahaa siduu iigu sheegay si ka duwan bay u dhacdee xantu waa xaaraan bay ku tiri aabbahay xaman waxa uu kaa yidhi aniga ii sheeg anaa kuu jawaabiye ma aragto igu yidhi sawdagay arkaya ma aragto oo inantaydu macsiye ma aragta weeyaan oo ragga ajaanibta ma aragto weeyaan ma maqasho oo wax ilaahay nabi maxamed ka cadhaysiinaya ma maqasho weeyaan ma hadasho oo dikri iyo quraan iyo hadal annaka nagula hadlaysa mooyaane hadal ilaahay ka cadhaysiinaya kuma hadasho ma qabato oo nin ajaaniba weligeed gacanteeda kumay qaban ma socoto oo lugaheega meel ilaahay uu ka cadhoonayo umay adeegsanoo lugaheega kumay marin buu yidhi sidaasuu aabbahay u jeedaaye si kale hamoodin bay ku tidhi waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib meeluusan ka filaynin ayaa arsaaqad ilaahay ka siiyey beertii baa la siiyey gabadhii maalqabeenku u dhalayna waa loo dhisay acdam min haadaa baa la waxaa ka sii qiimo badan oo ka sii weyn ninkaa saalix ee weliga ahaa iyo gabadhaa mutiicadda ahayd ee aabbaheed iyo hooyadeed talada aabbihii hooye ku guuraysay ee taladeeda aanan ku socon ee talada labada waalid aqalka u fadhidayna waxay ku curteen labadaa qof markay isku tageen imaamul acdam bay ku curteen imaam xaniifa imaamul acdam imaam nucmaan binu thaabit imaam xaniifa imaamka a'immadoo dhan imaamka uu ahaa ee imaam maaligna wax baray ee imaam maaligna imaam shaafici uu wax sii baray shaaficina imaam axmed uu wax sii baray imaamul a'imma baa la yidhahdaa waa imaamul fuqahaa sheekhaasee gabadhii iyo ninkaas saalixa markay isku tageen weligaa ilaahay ee cilmigiisu maanta adduunkao dhan uu buuxiyey ee faqiiha ahaa ayaa ilaahay labadaa qof ka soo dhex saaray war walaalayaal dhallinyaray haddaan ilaahay ka cabsoonno oon ilaahay dhab u rumayno oon daacadda ilaahay ku dadaalno oo sida ilaahay naga raba aan yeelno sidaan doonaynaa nolosha adduunyada inninkana laynooga dhigi war may maqlaysaan dhallinyarnimadaada ilaahay ku xidhnow cabsida ilaahay baa meel walba galaysa ogow reer wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa arsaaqad barakale cabsida ilaahay baa kuu haysa oqoon wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa sharaf iyo cizi cabsida ilaahay baa kuu haysa haddii cabsida ilaahay meesha aynan ku jirin waxa aad baranaysaan waxba kama jiraan ogaada injineer waa inuu alla ka cabsi yeeshaa dhakhtar alla ka cabsi waa inuu yeeshaa directorku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa wasiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa madaxweyne alla ka cabsi waa inuu yeeshaa taajirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa faqiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa alla ka cabsi nolosheenna hadduu ku jirin waxa aan baranayno waxba kama jiraan ogaada waddanka maraykanka beri annakoo joogno jamaaca ayaa lanoo sheegay nin reer soomaaliya oo masaajidka meel 40 kilomitr loo jiro ayuu ku nool yahay ninkii baa lanoo geeyey da'diisa waxaan ku qiyaasaynaa 65 jir waa cimralghaalibkii ummaddu ku jira ninkaasi jamaacaddii baan uga warrannayoo uuna soo raaco jamaacaddii buu u yimid markaa jamaacaddii oday nala socday iswaraysteen mid qaraabadiisay isgarteen ilaa soomaalidu waa iska wada ehel weeyaane hal qoys baan iska wada nahe markaasuu yidhi berigii dawladda maxaad ahaan jirto dee nin caynkaasoo agaasimo oo caynkaasoo raashiyan wax ka soo barto wuxuu yidhi odakaalay marba haddaad oqoon marka horeba oqoonyahan aad ahayd oo raashiya aad wax ka soo baratay oo dalkii markii dawladdu ay jirteen nin madaxa aad ahayd
halkan hadda markaad timid maxaad ka shaqaysaa bal noo sheeg waxba kama shaqeeyo halka shaqo la nooma dhiibanaye markii shaqo la noo dhiibi waayo aqal yarna waa lana siiyey xoogaha yaroo caydh oo dadka qaxootiga la siiyo raashinana waa lana siiyaa dawo yar dhakhtar yaroo kaar yaroo caymis oo dhakhtarrada aan isku daweynana waa lana siiyey markaan waxaan qabta aan waayey buu yidhi ayaan jaamacad iska galay buu yidhi waa imse jirna waa imse jir waa 65 jir markaasaan ku nidhi 65 jir haye maxaad barataa bal sheeg ilaa marka horeba nin aqoon laadahayde wuxuu yidhi xidhiidhka dowladaha dariska ka dhexeeyaan bartaa buu yidhi labada wadan ee dariska ah xidhiidhka ka dhexeeya ayaa markaasaa lagu yidhi xidhiidhka adiga iyo ilaahay niga dhexeeya waa sidee baa lagu yidhi wallaahi maskiidka axadii baan imaadaa buu yidhi axadii yoom alaxad ilaa wadanka axaddaa la fadhiyaa moogta iyo weekendiga sabtidii axadda markaasaa lagu yidhi haddaanad adoo 65 jira imisa cimrigaaga ku hadha ma garan kartaa ma garan karo waxaad rajo ka qabtaa wadankii intuu nabad noqdo adoo aqoontan biirsaday inaad ku noqoto Soomaaliya ha ma laga yaabaa inaad gaadha ma laga yaabaa Allahu a'lam buu yiri waxa la xiriirka Ilaahay adiga niga dhaxeeya haddana waa sidee aad buu u liitaa buu xiriirkaas oo salaadahaygii baa iska abuuri maartana galab maraan tukado maraan daayo waxa la xiriirka haddaba adiga iyo Ilaahay niga dhaxeeya professorada jaamacadan inii dhiga ma yaqaanaan buu yakuna waxa la haddaad adiguna xiriirka aanad baranin Ilaahay adiga niga dhaxeeya professorada jaamacada ku dhigan xiriirka bini aadanka iyo Ilaahay ka dhaxeeya haddaynan aqoonin waxba ma taqaanaan zero batin baa lagu yidhi madaxu qabsaday ninkii waan hoynay gurigiisii baan ku celinay subaxdii dambu nagu soo kalahay wuxuu hadalkii aad shalay galabtii itiraadeen waan ka seexan waayay buu xalay toole 10 maalmood baan raacay alaabta ay qaado buu jaamacadii soo raacay شوف waxaan ka wadaa xiriirka innakii Ilaahay naga dhaxaya haduunan meesha jirin waxaad aqoon leedahay waxaad baranayso iyo waxaad dhaqaale aad haysatay iyo waxaad darajadii awood aad leedahay waxba kama jiraan ogow waxa Ilaahay bini aadanka ku sharfa ee bini aadanka Ilaahay ku qiimeeya ee bini aadanka Ilaahay ku jeclaada ee bini aadanka kale ay ku jeclaadaan waa Ilaahay cabsidiisa iyo dabiicada wanaagsan waa labada nabi maxamed markii la weydiiyay la yiri amalka ugu badan ee dadku jannada ku galaan noo sheeg wuxuu taqwallahi wa husnul khuluq ba nabigu yiri amalka ugu badan ee dadku jannada galideeda ay ku mutaystaan waa alla ka cabsiga iyo dabiicada wanaagsan amalka ugu badan ee dadka ugu badan naarta ay ku galaan nabigu yiri waa arabka iyo awrada rasuulku yiri ikhwani wala layaal dhalinyaratihiin awlaadaydii baad la daatihiin waqti fiican waad haysataan waxbarashadana ku dadaala laakiin diinteena ha ku dadaalna amal ku dhaqankeyga diinteena barashadeedana ha ku dadaalno adoo cilm maadiga dhiganaya cilm sharcigana baro adoo cilm maadiga dhiganaya quraanka ilaahayna xafid waliba cilm maadiga maanta dadku ay dhiganayaan waxa uu dadka ka dhaadhicinaya wax walba waa naatiir wax walba wadi fahmi saamano malen wax walba waa natural tabiici xanuunkan imika adduunka yimid baa lagu waa tabiici duufaan baa yimid waa tabiici dhul baa gariiray waa tabiici saasay ku oranayaan gaaladu laakiin tabiici maaha quraanku waxa uu leeyahay wax tabiici ma jire Allahu khaliqu kulli shay walba ya abuuray ilaahay ba abuuray waa cilmigan maadiga ee maanta dadkeenu ay dhiganayaan meelaha quraanka uu ku khilaafsan yahay ba kamid tahay cinwaankaas aan soo qaadanaya laakiin barashadiisa ma inkareen iska barta laakiin ha yaqiinsanaan kalsoonidaadu Ilaahay ahaato Malik bin Dinar Abu Abdullah ayaa habeenada kamida waxa lagu yiri manaam baa lagu yiri kaco masaajidka inaan dhalinyaro ku dhex jiro 3 maalmood cunto aanan cunine qaado cuntada u geebaa lagu yiri waa manaam uu kacay marka sheekhi kolkii witridii tukaday cunto soo diyaariyay masjidkii buu yimiday wuxuu u yimiday nin yaro shaaba oo qaa'im bil-layl habeenkii sida u taagan oo quraanka Ilaahay akhrisanaya markaas uu keenay cuntadii markay wada cunteeyeen ayuu ku yiri aqalkaygu ma fogo
laabkan markaad ka soo laabto laabka kale ka wayaan igu kaalay buu yidhi markaad cunto u baahato yarkii yara uu xanaaqay sheekh buu ka yidhi hore maad ii taqaanay buu yidhi may anu maan ku aqaanay maya anu intaan ku imid baahideeda ma kuu sheegtay maya xalay adiga oo jiifa kii amarka kugu siiyey inaad kacdood ii soo adeegto cunto aad ii keento kaa baryadiisa intoon dhaafo adiga maan ku imaadaa buu ka yidhi anu meel baan aqaanaa weeyaan meeshay wax caalamka meesha laga maamulo ayaan cilaaqo la leehay weeyaan adi baahidayda kuu imani maayo kuna sheegani maayo baahidayda ilaahay baan u sheegtaa buu ka yidhi ilaahay waa kee waa ka xalay adoo aan war iga qabin saqda dhaxa amarka kugu siiyey inaad kacdo ood ii keento cuntada kaa un baan baryaa cid kale ma barya buuhi anigu horumarku waa kaas dhallinyarada inay horumarto ma doonaysaan intay maanta dhallinyaradeennu ilaahay ku xidhan tahay horumar waa taas waxaan nigu nafteydana aan ugu nasteexaynayaa ininkana nigu nasteexaynayaa ilaahay aan ka cabsano insha allah dhahada insha allah dhahada noloshaada adduunyada inay hagaagto aakhiradana ku hagaagto waxa sees u ah oo alla ka cabsi alla ka cabsi haddaad leedahay aqoonta aad baranayso baraka yeelan cimrigaagu baraku yeelan shaqadaad ka shaqaysa baraka yeelan waayo qofku ammaano inuu yeesho ma dibloomkaa keena mise iimaankaa keena bali sheega ima fahmin hadalkaygaan u malayn qofku inuu noqdo run sheege ma dibloom baa loo soo qaataa oo jaamacad baa looga soo baxaa mise inuu qofku run sheege inuu noqdo iimaan buu u baahan yaha alla ka cabsi bali warrame inuu qofku noqdo baarulwaalidayn qof labadiisa waalid baari waa inuu noqdona ma jaamacad baa loo soo bartaa mise iimaan alla ka cabsi u baahan tahay ammaano qofku inuu yeesho ammaano qof la aamino inuu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay uu odhan karaa qofku dibloom waxaan la soo qaatay anigoo laysoo siiyey inaan ahay ninka qaaradda afrika ugu aaminsan ugu ammaano fiican ma jira car ma jirtaa jaamacad intoo la galo kii beenaalihii runsheego ka soo saaraysa kii dabeecadda xunaa dabeecad wanaagsana ka dhigaysa kii mujrimkii mid wanaagsan ka yeelaysa kii labada waalid ku xumaa mid labada waalid u fiican ka yeelaysa ma jirtaa ma jirto jaamacaddaas way jirtaa jaamacaddaas waa jaamacadde waa masaajidda waa barashada diinteenna waa iimaanka waa dacwadoo laga shaqeeyo waa iimaankoo la dhiso weeyaan waa masaajidoo la camiro waa qur-aankoo la barto waa akhlaaqdii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo culummada la weydiiyo laga barto taasaa qofka bini aadamka hagaajinaysa marka diintaa ku hagaajinaysa ogow diin xafiis nin ganacsada uu leeyahay ayaan maalin galay waa ziyaartay wasalaamu calaykum halkan waxaa hor taalla kaamera baa ku reeban xafiisoo dhan ku rakiba kaamero marka halkan uu ka shaashad baa hor taallo ka daawanayaa xafiis walba intuu qof ee soo galaysa iyo qofka xafiiskaa fadhiyey wuxuu ku mashquulsan yahay gabdhaa ku jira markaasaan ku yidhi war baalkan maxaad u dhigatay baan ku yidhi wuxuu yidhi dadkaasi ma ad arkaysaa haa ilaahay ka baqi maayaana kaameraga ka baqaan buu yidhi maxay ka baqayaan shaqadana way khaayimi jireen wayna idhici jireen buu yidhi laakiin kaameraga markaan sameeyey waa ka nabadgelay buu tuugadii way yaraatay buu yidhi markaad dhooftidna mobeelkaan kala socdaa buu yidhi GPS baa igu samaysanoo halkanaan kala socdaa buu yidhi macnaha ninkaasi waxa uu leeyahay lisaanul xaalkiisu dadka aniga ii shaqeeyo oo dhan waa wada tuug haddaan kaameraga dul dhigin ma aaminayo way wada dhacayaan soo sidaa maaha saasuu lisaan xaalkiisu dhigayaa haddana maalin kale ku isaga la shaqeeyo muddo la shaqayn jiray ayaa la waraystoo lagu yidhi war ninkaa beryo badan ba waad la shaqaysaaye lacag muxuu ku siiyaa wallaahi $200 buu siiyaa damanii biiriya markaasuu yidhi maalintii aan shaqada lay qoray waa 8 sano ka hor lacagtuu iigu bilaabay buu ilaa iminka i siiyaa ninka shaqaalihiisa ugu shaqo fiican la soo shaqeeyayna waan ahay bil kastana wuxuu igu yidhahdaa waan kuu biirin addoonkaasi cid ka been badanoo waddanka ku nool ma jirta buu yidhi
isagii ayaka waxa uu ka aaminsan yahay inay yihiin tuug iyakiina waxay leeyihiin hee beenalowga waddanka ugu been badan waa isaga isagu waxaa laga yaabaa diblom uu leeyahay master aan iyo dee waa nin jaamacada ka soo baxay waxa u shaqeeyo o dhanna jaamacaday ka soo baxeen laakiin laisma aaminsana maanta qofka in la aamino ammaano yeesho waxaa keenaya waa laka cabsiga maxaa keenaya idan waa inaad fahamtaa iimaanka iyo alla ka cabsiga iyo diintu wax culummada iyo wadaadada ku kooban maaha waa wax mujtamaca waddanka o dhan u baahan yahay maanta waddankeenu waxaan u baahanahay nin injineeroo ilaahay ka baqaaya nin dhakhtaroo ilaahay ka baqaaya nin brofesoroo ilaahay ka baqaaya nin wasiiroo ilaahay ka baqaaya nin madaxweynoo ilaahay ka baqaaya nin taajiroo ilaahay ka baqaaya nin faqiiroo ilaahay ka baqaaya nin dhallinyaroo ilaahay ka baqaaya haween ilaahay ka baqaaya culummo ilaahay ka baqaysa hadday ummaddu ilaahay ka baqdo qof walba xaqiisa u heliyo ogaada noloshana way noo macaanaan insha allah dhahada inaan ilaahay diintiisa iyo iimaanka inaan barano u diyaar ma nahay faclam annahu laa ilaaha ila allahu واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قرآنك إلهي كشيغ وحال شيغيا إن إيمانك الله برتا وواجب على كل مسلم إن دتك إيمانك الله برا وعلمك قرآنك الله برا وحديثك النبي الله برا ويقينك الله برا وعقيدة دتك الله قدسا وهلك النبي محمد رسالته وكبلا بركة وحبرشدنا كود ذلك diinta barashadeedii iyo iimaankana barashadiisa ku dadaal insha Allah dhahada firaaq markaad heshaan waxaan ugu dhiirinaynaa ugu boori gelinaynaa markaska dacwada kale oo jamaacadada anagu ardayda Djibouti inta iskoolka ay dhiganayaan ma taabanno waxaana tacliinta ku mashquula laakiin masaajidooda iyo xaafadahooga loogu sameeyaa kulana caynkana laakiin maalintii fasax iyo jaanis ay helaan waxa laga dalbaa in jamaacada raacaan ilaahay dartii u baxaan insha Allah dhahada inaguna jaanis markaad heshaan inaad ilaahay dartii u baxdaan ma niyooteen insha Allah dhahada bal ayaa niyooda gacanta taago dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo dad badan oo walaalaheena oo dibadda iyo gudahaba jooga ayaa duca dalbanaya qof walba halku ka kurbaysay kurbada Allah ka qaado qaar way bukaana caafimaad sariic Allah siiyo muraadkooga macsilahana gacanta midig Allah ka siiyo inakana amniga iimaanka Allah inoo ziyaadiyo aqoonta aad baranaysaana to aad naftiina iyo diintiina iyo dalkiina aad ku anfacdaan Allah inaga yeelo dalkana aad joogtaan amnigiisa Allah inoo adkeeyo amnigiisa Allah inoo adkeeyo muslimiintana meel joogan muwaafiqiin midnimada Allah siiyo sallallahu ala nabiyina muhammad